ma ku wareertay cryptocurrency sida lacag looga sameeyo ma daawatay muuqaalo badan oo khuseeya cryptocurrency mana fahmi weyday ilaa hadda qaabka lacag looga sameeyo cryptocurrency boqolaal video baad daawatay boqolaal clip baad daawatay information badan baad dhageysatay balse ilaa hadda waad fahmi lahayd qaabka looga sameeyo cryptocurrency lacag looga sameeyo maanta waxaan kula wadaagi doonaa hab fudud oo step by step gaar ah oo aad ku ogaan karto qaabka lacag looga sameeyo cryptocurrency waliba qaabka loo yaqaano investmentiga maalgelinta qaabka loo yaqaano marka soo dhawaada muuqaalkeenu uu ka duwan yahay muuqaalada dadku badanaa ay sameeyaan oo dhan boqolaalka video ah maadaama aan jeclahay ummadayda aan soo galay halkan inaan baro xaqiiqda iyo waxa jira ee meesha yaala andooniyo dadkaas inoo sheego waxaan ku kala ogaan kartaa muuqaalkayga bilow ilaa dhammaad dhammayso oo daawo adiga ayaa markaa ogaan doona runta iyo beenta iyo xaqiiqda waxay tahay marka toos ayaan u gelaynaa marka koobaad aad cryptocurrency aad ku fikirto talaabada koobaad aad qaadaysa horta marka koobaad waxa weeye waxaa la yiraahdaa do your own research inaad samayso adigoo cilmi baadhis adoo aad gaar u leedahay inaad samayso qofna aan ku hogaamin qof wax bartay baad tahay qof wax akhrinaya baad tahay qof wax dhageysanaya baad tahay qof ka fahmaya baad tahay hatta luqadda ingiriiska waad ku dhageysan kartaa marka koobaad do your own research waxaad samaynaysaa adigoo cilmi baadhis ku gaar samaynaysa inta markaad ogaatay ku qanaacdo cryptocurrency inaad soo gasho halkan aad ka bilaabaysaa talaabada koobaad ee marka anigu aan ku siinay waxa weeye marka koobaad talaabada ugu horeysa ee aad qaadaysaa waxa weeye inaad hesho exchange inaad hesho waliba anigu kuma talinayo hal exchange kaliya inaad maaragtay marka aad soo raadsato balse u yaraa ilaa 2 exchange waa inaad soo hesho u yaraan inaad samayso 2 exchange maadaama taas maxaa loo leeyahay sababtu waxa weeye si amnigaaga u wanaagsanaado waxaa dhici karta in hal exchange la hagareeyo ama la scam gareeyo waxa ku jirta waa digital khad bay ku jirtaa waa online wax walba ka dhici karaan marka lacagta hatta hadaad $1 ku shubanayso 500 baa meel geli maadaama hal exchange haddii la dhaco ka kale suuqa ugu badbaado balse haddii hal exchange kaliya aad isticmaasho waxaa dhici karta in la hagareeyo sidii berigii dhawada dhacday ee Bybit la hagareeyay dadku lacag badan ay ku waayeen walow maaragtay lacag la soo celiyo oo loo celiyo dadkii isticmaalayay exchange-ga anu ma isticmaali jirin marka taas waa markaa midda koobaad inaad hesho exchanges inaad hesho aad soo raadiso exchange-da ugu caansan markaa waxaa kamid ah sida Binance-ga, Coinbase iyo Kraken iyo KuCoin iyo kuwii kale la halmaala marka kuwaasaad soo raadsanaysaa oo kuwa ugu caansan ee la isticmaalo oo kuwa soo raadsanaysaa iyo kuwa kale la halmaalay markaa adigoo ku aragto ku qanaacdo inaad ku biirto talaabada xigta waxa weeye inaad iska duwan geliso oo aad mid kamid ah ama u yaraan 2 kamid ah inaad iska duwan geliso adigoo waliba verify gareynaya ID-gaaga soo kale mataqaana gelinaya ama iska duwan gelinaya two factor authentication-ka adigoo isticmaalaya marka waxaad ku xiran kartaa soo kale two factor authentication for security yani si amnigaaga u wanaagsan ama extra security waa loo yaqaanaa extra security waa amni dheeraada marka dhammaan macluumaadkaaga aad gelinaysaa kabacdi marka aad geliso marka halkaad furanaysaa marka exchange mid kamid ah ama 2 ayaad gelinaysaa talaabada saddexaad waxa weeye depositing inaad yani deposit gareyso ama lacagtii aad soo gashato marka lacagta ka soo gashan su'aaligeedna meesha taala waxaa jira dhalinyaro Yix la yiraahdo company oo Ethiopia waxa ku leeyahay xarun ku leeyahay Soomaaliya Muqdisho iyo waliba Kenya iyo meelo kale oo dunida kamid ah marka qolada Yix baan aniguna isticmaala adiga xarajeenaya in isticmaasho mar rabo in calaamadooda iyo numberkooda soo dhigo maadaama aan anigu haysiinayn laakiin waa raadsan kartaa meelo kale ka raadsan kartaa Yix baa loo yaqaana qoladaas ayaa inta badan aad lacagta ka heli kartaa crypto-da ama meelo kale marka adigoo aad ku kalsoonaato lacagta markaad hesho lagu soo deposit gareeyo talaabada afraad marka waxay noqonaysaa inaad doorato coins maadaama aan ku wari do your own research coins marka adigoo aad u aragto kuwa aad maalgashato oo aad ku qanacsan tahay maalgelintooda ama lacagahooga ayaa markaa dooranaysaa tusaale ahaan ilaa 4 ilaa 5 iyo mar walba lacagtaada ku xiranta ilaa 6 intaad wadi karto waxaa ugu caansan Bitcoin iyo Ethereum iyo Solana XRP Dogecoin kuwan waa kuwa caansan ama tumaha ugu sareeya kamid ah mashanta ugu sareeya ay kamid yihiin marka inta doonta ayaa marka aad ka gashanaysaa
altcoins waa iyaguna soo jiro oo macnaha bitcoin wixii ka socdo wax loo yaqaan altcoins waa loo yaqaan iyaguna kuwan baad markaa ayaad markaa amal gashanaysaa hadba intaad awoodo ayaad amal gashanaysaa kana markaa ma gashato talaabada shanaad markaa waxa weeye holding your investments inaad hayso oo waqti sugto oo aad hayso marka waqtigaas kor buu noqonayaa waxay ku xiran tahay suuqa hadba suuqa isku bedelo waxa laga yaabaa maalmo kooban bilo kooban iyo muddo yar kooban inaad suuqa isku bedelo lacag fiican aad faa'iido kabacdina aad kala baxdo faa'iidadii waxaa laga yaabaa suuqa inuu maaragtay oo iska hado stable oo state iska ahaado oo iska joogo oo isbedel badan sameynin oo wax badan aan ku biirin saa wadina ay sanada ku qaato 4 sano 3 sano 5 sano hadba intay ku qaadanayso inay ku qaataa laga yaabaa marka qaabkani waa talaabooyinka ugu caansan ee ugu macnaha cryptocurrency bilow ilaa dhammaad investmentiga lacagta looga sameeyo qodob walba wuxuu leeyahay dee si by step in la dul istaago bal si guud habkan ayaa lacag looga sameeyaa muddo marka aad hayso lacagta waxba ku biiraya suuqii uu kacaya $100 dad meel gelisay 5 bilood ka bacd laga yaabaa 100 kale inuu kugu biiro wayna waa dhici kartaa in $60 kugu biiraan hadba suuqa ay ku xiran tahay